marmarka qaar ereyga waan kula joogi doonaa ama waqti baan kuu hayaa waa ereyada aynu beenta ka sheegno mararka qaar. Ku soo dhowaada sheeko murugo badan oo dhex martay wiil iyo hooyadii wada deganaa magaalada. Xasan waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku soo barbaaray magaalada. Waxa uu la noolaa hooyadii waxa ay gedi jirtay khudaarta, waxa aanay ku gedi jirtay suuqa si ay uga bixiso waxbarashadiisa. Markii uu gaadhay dugsi sare ilaa jaamacad, markii uu dhameeyey jaamacadda, waxa uu ka baxay magaaladii uu ku soo koray ay hooyadii ku noolay. Kadib waxa uu raadiyey shaqo. In badan kadib waxa uu helay shaqo, se uma uusan sheegin hooyadii. Waxa uu islahaa maalinkaad lacag hesho ayaad u diri doontaa hooyo. Waxa uu ka soo tegay hooyadii si uu ugu shaqeeyo lacag, balse waqti dheer kadib ayuu doonay inuu hooyadii ka war doono. Waxa uu raadiyey moobeel cid u dhow hooyadii maadaama uu ka soo maqnaa muddo dheer. Waxa uu helay gabadh la jaar ahayd hooyadii, taas oo ka warqabtay hooyadii. Kadib markii uu gabadhii la hadlay, waxa uu ogaaday in hooyadii ay ku sugan tahay xaalad aad u adag oo caafimaad. Gabadhii waxa ay u sheegtay in hooyadii ay xaalad caafimaad ku jirto, balse safarka oo dheeraa iyo magaalada uu deganaa iyo hooyadii deganay oo kala fogaa awgeed waxa ay ku qaadanaysaa waqti dheer si uu hooyadii u soo gaadho. Xasan wuxuu degdegaba magaaladiisii uu ka diyaar garoobo si uu hooyadii u gaadho. Waxa ay ku qaadatay in muddo ah in uu hooyadii soo gaadho. Hooyadii waxay la dhacaysay xanuun maadaamay da' noqotay, iyo weliba xasuusihii wiilkeeda oo in muddo ah aanay arag, aanay kana warqabin. Khaladka uu Xasan sameeyey ayaa waxa uu yahay in markii uu tegay magaalo kale uu is-idhi hooyo maalinkaad lacag hesho ayaad wax u diri doontaaye hadeer iska sug. Kadib muddo kadib ayuu soo raadiyey se waqtigaan ku simin. Xasan wuxuu soo degdegaba waxa uu soo gaadhay magaaladii ay hooyadii deganay. Kadib waxa uu ogaaday in tii Ilaahay ay u timid hooyadii. Waxa uu dareemay murug aad ah sababtoo ah uu dayacay hooyadii waxa ay ahayd gabadh aad u qalbi fiican una roon wiilkeeda, maadaama uu Xasan ahaa wiilka keliyaata ay dhashay. Xasan waxa uu soo cararaba waxa uu la kulmay geeridii hooyadii, Allah u naxariistee. Waxa uu gacmihiisa ku aasay hooyadiisii uu jeclaa, hooyadiisii uu u dadaalayay. Alla waalidiinteena inuu daayeen. Xasan waxa uu dareemay murugo aad ah iyo in uu dayacay hooyadii. Kadib waxa uu sameeyey in uu aad uga murugoodo, habeen kastana uu ku riyoodo. Waxa uu dul fadhiyi jiray qabriga hooyadii, kaas oo ereyada uu oran jiray ay ka mid ahayd hooyo i cafi waan ku dayacay. Markii uu in muddo ahba dul fadhiyey qabriga, habeenkii ay hurdo u iman la'dahay, maalinkiina uu aad u murugoonayo. Muddo kadib waxa uu ku riyooday hooyadii. Waxa aanay ugu timid riyo, waxa ay ku tidhi wiilkaygiiyow anigu waan ku cafiyey, halkayga cafis baad ka tahay ee Ilaahay uun cafis weydiiso. Dembigaad ka gashay waalidka Ilaahay uun cafis ka weydiiso. Bal qalbi wanaagga hooyadeen Ilaahay haynoo daayo, inta ay ka dhimatayna Allah ha u naxariisto. Xasan
xasan waxa uu sameeyey in uu qaato taladii hooyadii. Waxa uu dembi dhaaf weydiistay Ilaahii abuuray, hooyadiina siiyey. Waa uu ka toobad keenay dembigii uu sameeyey. Badanka waxa uu u duceeyaa hooyadii. Sidoo kale waxa uu noqday waaniye iyo baraarujiyo oo bulshada ka waaniya dayaca iyo in ay dayacaan waalidkooda. xasan waxa uu dhalinyarada ku baraarujiyaa in ay ilaaliyaan waalidkood, hooyo iyo aabbaba. Waxa ay waqti gelinayaan, dadaal gelinayaan waa adiga hooyo iyo aabbo. xasan haddeer waxa uu la dhibaataysan yahay waa murugadii iyo dhibaatadii uu mariyey xagga waalidka, maadaama uu ka baxsaday uuna ku soo warcelin. Isagu waxa uu islahaa wax wanaaji ma ay islahayn wax u yeel hooyada. Haddaba maxaynu kala soo baxaynaa sheekada? Shayga ugu muhiimsan ee aynu sheekada kala soo dhex baxaynaa waxa ay tahay in aynu u samafalno waalidiinteenna. Ilaahay in badan waxa uu inoo dardaarmay in aynu u samafalno waalidkeen. Waxaan kaa codsanayaa in haddii aad halkan nala soo gaadhay aad channelka subscribe noo saarto, like-na noo saarto. Waxay naga caawinaysaa inaynu hore u soconno. Sidoo kale barta commentiga noogu soo qor wixii talo iyo tusaale ah aad rabto inaynu ka bedelno sheekooyinka noocan ah aynu soo gelinayno. Waxaan kaa codsanayaa inaad u sheergarayso asxaabtaada iyo dadka aad garanaysaan si uu sheekadani u gaadho dad badan, waalidiintoodna ay u ixtiraamaan. waad mahadsan tahay. waxaan ku leeyahay aan kaaga tegayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.